madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa dowladda federaalka ku eedeeyay inay si hoose u taakulayso kooxda Al-Shabaab Islaam oo ka hadlayay shirka aragti wadaagga ee madasha Heritage ku qabatay magaalada Garowe ayaa sheegay in dowladda federaalku aanay fulin heshiiskii dhigayay in la iska kaashado amniga qaranka balse taa beddelkeeda ay si hoose u taageerto kooxda Al-Shabaab isagoo tusaale u soo qaatay rasaasta qoriga BKM oo uu sheegay in ogaayeen in Al-Shabaab ka go'day ay muddo 24 saacadood gudahooda ku heshay markii ay baaritaan sameeyeen oo ogaadeen in rasaastaasi tahay mid loo soo iibiyay ciidamada dowladda federaalka ah Axmed Maxamed Islaam oo arrimaha ka hadlayana waxa uu yiri waxaa jirtay rasaastaalay waxaan u maleynayaa warqadihii aan soo qoray la taliyaha amniga qaranka uu fadhiyay isagaan ku wareejinay codsiyadii baan yaanu keenay in rasaastaa la bixiyo sidaa la yeelo waxa kalena lagu xujisiiyo horta fadhigaa wax ka dambeeyay oo barnaamijkaas la isla soo qaaday ma jiro fadhiyo ka dambeeyana la islamaba imaninba waxaa noogu xigtay waxay ahayd caqabado badan oo aanu kala kulannay iska daa in lanaga caawiye inay dhibaato iyo mushkilad naga soo gaadho inaan weyno rasaas aan shabaab kula dagaalano bal waxaa jirtay tusaale yar baan idin siinayaa rasaas shabaabka oo aan kula dagaalamayno sanguuni yaa waxaan weynay rasaas cidhiidhi baan qabsannay waan si un baanu ku hellay meelaan ka soo gadanay shabaabka waxaa ka go'ay rasaasta BKM-ka inay ka go'day annagoo og baan qolada saaxiibadeen ahaaye yaan la wadaagno oo ku nidhi nimankaas intaasaa ka go'aan hala waxeeyo within one day bay kula yimaadeen rasaastii baan qaadnay waa rasaasta dowladdu ay hadda la soo degtay maarta ileen dabada waa la akhriyayaa ee hadda taalla ee annaga lanoo diiday inay 24 saac gudahood kula yimaadaan oo ay keensadaan miyaa laga soo gaday miyaa la siiyey ma lagu caawiyey we don't know say wuxuu jireen annagii inaan weyno shabaabkiina ay helaani waxay noqotay culays iyo caqabad Cabdulqaadir Carab telefishinka gobonimo